khadar ama khudur calayhi salaam wuxuu alla siiyey cilmi iyo garaad aan la siin qof kale oo dunidan soo maray. waxa uu ahaa macallinkii nebiyada, waxaana lagu xusay 3 kitaab ee samaawiga ah. in kasta oo aynu badankan garanayno magiciisa, maqalnayna sheekadiisa, haddana ma jirto tafaasiil badan oo laga og yahay. ma wuxuu ahaa nebi mise rasuul, qof caadi ah mise malag laga soo dejiyey samada? waxaaba jira dad yiraahda oo aaminsan inuu nool yahay ilaa maantadan. haddaba maxay tahay sirta daahsoon ee ku gaadaaman qisada khadar calayhi salaam? kumuu ahaa? maxayse tahay xaqiiqdiisu? isirka iyo qofka uu yahay khadar calayhi salaam waxaa ka jira khilaaf. taariikhyahanada iyo culimmada qaar ayaa sheega inuu yahay inan u dhalay nebi aadam calayhi salaam, halka taariikhyahanada qaar ay yiraahdaan waa inan uu dhalay qaabiil, awowena uu ahaa nebi aadam calayhi salaam, halka kuwo kalena ay yiraahdaan waxa dhalay nebi haaruun calayhi salaam. waxaana keentay in lagu kala aragti duwanaado qofka uu yahay khudur iyo meesha uu ka soo jeedo xogta yar ee laga hayo taariikhdiisa. qur-aanka ayaa lagaga xusay khadar suuradda al-kahf, gaar ahaanna qisadiisa caanka ah ee dhex martay isaga iyo nebi muuse calayhi salaam. waxaa dhacday in nebi muuse uu maalin maalmaha ka mid ah u khudbadeeyey dadkiisii. kadibna waxaa dhacday in mid ka mid ah dadkii khudbadda dhegaysanayay uu weydiiyey nebi muuse, ma jiraa qof ka aqoon badan? markaasi ayuu ugu jawaabay nebi muuse, maya, ma jiro. kadibna alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday nebi muuse inuu jiro mid ka mida addoommadiisa oo ku sugan meesha ay ku kulmaan labada badood oo ka aqoon iyo cilmi badan. nebi muuse ayaa u jihaystay meeshii uu alle u tilmaamay si uu ula kulmo addoonkan ka aqoonta badan, waxna uga barto. way kulmeen nebi muuse iyo khadar. kadibna nebi muuse ayaa ka dalbaday inuu raaco si uu wax uga barto. khadar ayaa oggolaaday, laakiin wuxuu shardi uga dhigay inuu raaco in uusan wax su'aal ah weydiin ilaa uu isagu u sheego. wuu oggolaaday nebi muuse. kadibna waxaa u bilowday hayaankii aqoon kororsiga. markii ugu horaysayba waxay raaceen doontan markii ay raacayeen wax lacag ah lagama qaadin. kadibna waxaa dhacday in markii ay xogaa socdeen uu khadar u geystay dhaawac doontii, kana jebiyey alwaax ka mida alwaaxyadii ku xidhnaa. nebi muuse ayaa iscelin waayey. kadibna wuxuu weydiiyey, waxay nagu qaadeen lacag la'aan, maxaad u waxyeelanaysaa doontooda? markaasi ayuu ugu jawaabay, ma awoodid inaad dulqaadatid inta aad ila socotid. kadibna nebi muuse ayaa ka raaligeliyey, kuna yidhi ha ii qaban, waan ilaaway. waxay sii wateen socdaalkoodii. iyaga oo socda ayay arkeen carruur meel ciyaaraysa. kadibna khadar ayaa dilay mid ka mid a carruurtaasi. nebi muuse ayaa ku yidhi, ma waxaad dishay naf aan dembi geysan oo naf kale aan goyn? waxaad la timid wax aan fiicnayn. khadar ayaa ugu jawaabay, miyaanan ku odhan ma dulqaadan kartid inta aad ila socotid? weli safarkoodii ayay sii wateen. kadibna waxay yimaadeen tuulo ay deggan yihiin dad aan martida soo dhowayn, wax qadarin ahna aan u muujin. intii ay ku sugnaayeen tuuladii ayuu arkay khadar derbi soo liicaya oo dumi raba. kadibna wuxuu ku sameeyey dib u hagaajin si uusan u dumin. nebi muuse oo yaaban ayaa ku yidhi, maxaad ugu hagaajinaysaa meesha ay deggan yihiin dadkan aanna marti soorin? khadar ayaa xanaaqay. kadibna wuxuu ku yidhi nebi muuse, halkan ayaynu ku kala haraynaa oo isla sii socon mayno. waana kaaga jawaabayaa waxyaabihii aan sameeyey ee aad sugi kari weyday inta aan kaaga sheegayo sababta aan u sameeyey. doontii aan badda wax ku soo gaarsiiyey waxaa iska lahaa masaakiin ku xamaasha, waxaana ka dambeeya boqor daalim ah oo doon kasta oo cusub xoog iyo khasab ku qaadanaya. haddaba si uusan uga qaadan ayaan dhaawac u gaarsiiyey doontaasi. haddii aan u imaado ilmihii aan dilay, waxaan arkay in waalidkiisu ay yihiin dad wanaagsan oo alle ka cabsi badan, isaguna uu mustaqbalka noqon doono mid ku wareeriya kufri iyo gaalnimo. sidaasi ayaanna u dilay. gidaarkii soo liicayey ee aan dhisay isagana waxaa lahaa 2 ilme oo agoon ah, waxaana ku hoos tuugan dahab ay dhaxal u leeyihiin oo uu uga tegay aabbahood. haddii uu derbigaasi dumana, dadkii degganaa tuulada ayaa carruurtan agoonta ah xoogaysa oo dahabkooda qaadanaya. sidaasi ayaanna ugu dhisay si uu dahabkoodu ugu dhowrsanaado oo ay ula soo baxaan marka ay weynaadaan. kadib
markii uu saddexdii arrimood ka jaahil bixiyey ayay meeshii ku kala tegeen nebi muuse calayhi salaam iyo khadar. dadyowga qaar ayaa sheega in khadar ama khudur uu ilaa xilligan nool yahay oo uusan dhiman, laakiin culimmada badankood ayaa isku raacsan in hadalkaasi uusan waxba ka jirin. khadar ayaa sidoo kale dadka haysta diimaha kale iyaguna aaminsan jiritaankiisa. tusaale ahaan kiristanka ayaa u yaqaana qidiis margares, waxayna aaminsan yihiin inuu ka soo baxay magaalada beyruut si uu gabadh degganayd halkaasi u badbaadiyo. waxaana ku xusan kitaabadooda in la dilay bishii afraad sannadkii 303 ee miilaadiga kadib markii uu qaatay diinta kiristanka. waa sida ay aaminsan yihiin kuna xusan kutubtooda, halka yahuudduna qisada khadar ee ku xusan kutubtooda ay in badan isaga mid yihiin qisada ku xusan qur-aanka. laakiin magacyada labada qof ee ay qisadu dhex martay ayay yahuuddu aaminsan yihiin inay kala ahaayeen xaakhaam la odhan jiray yuushac binu laawi iyo ilyaas. xaakhaam waxaa loo yaqaanaa wadaad marka laga hadlayo diinta yahuudda. isku soo duuduubo, qisada khadar ama khudur ayaa ah mid ay siro badan ku gaadaaman yihiin, aysanna jirin cid garanaysa qisadiisa oo dhammaystiran.